بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إلهي با مهدسن مضن ونكسن متيستي إن لغم هذه الرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. waxaan galabta jeclaystay iyadoo salaadii casarna loo adimay in aan ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah warbixin ku saabsan ninkii mujrimka ahaayo gabdhaha naga laayay, gabdhihii Soomaaliyeed oo saddexda ahaa, hooyadii iyo gabadhay dhashay iyo gabadhii ay habaryarta u ahayd, ninkii dilay oo sida foosha xun u dilay oo islaamnimada dhaafsan, soomaalinimada baalmarsan, insaaninimada ka baxsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa waxaa isoo gaaraya oo laamaha amniga ragga joogaa oo Soomaali iyo dad kaleba ah ay isoo gaarsiinayaan ninkii gacanta in lagu dhigay oo gacanta lagu hayo oo warbixintii ay socoto. sawirada la ii soo diray waxay i tusayaan in isteeshanada qaarkood mid ka mid ah sawir laga soo qaaday intii baaridu ay socotay iyo meelihii maxay ahayd loogu daba jiray in lagu qabto. sawiradii laga soo qaaday ilaa iyo goor dhaweyd ninkii in gacanta lagu dhigay isagoo garka xiirtay, shaarba reebtay, caynkaa ah. 10 daqiiqo ka horna waxaan la hadlayay meesha lagu haya hadda. wixii ka soo kordhaana oo si maxay ahayd xaqaa'iqdu wuxuu xoogsatana waa idinla soo wadaagaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhagarqabihii soo qabtay oo gacanta ku dhigay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad ballaaran hanaga gaadhee dulmigii dhacay daahiriyey daalimkii geystay. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Soomaali oo dhan meel kastay joogto arrinkaa sida ay ooga dhiidhiyeen oo ay maxay ahay uga falceliyeen. runtii waxaan horay ooga baranay ma ahayn Soomaali ilaahay ha mideeyo, allah isku duubo, damiir xooggan bay muujiyeen. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa, ugu shukrinayaa Sleep Business Community oo hawshan bilowgeediiba xoog ballaaran gelisay, awood xooggan gelisay, oo ka dambeysay maxay ahayday banaanbixii ballaaraa. waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa mudane Yuusuf Xasan, xildhibaanka Kamkunji, oo isaguna runtii kaalin xoogan ka qaatay banaanbixii mudaharaadkii, oo noo keenay xataa senatarkii iyo siyaasiyiintii waddanka si xooganna ay oga hadleen. sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa suuqleydii suuqa qaaxirtay oo yaboohii iyo maxay ahaydayay hadalkii ka soo baxay Sleep Business Community iyo siyaasiyiinta Yuusuf Xasan ay yiraahdeen suuqa alla xiro baritan alla isu soo baxo u dhaga nuglaaday suuqa qeexray. suuqleyda allah idin barakeeyo. sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed oo aan u kala harin saqiir iyo kabiir, rag iyo dumar, caruur iyo ciroole, culumo iyo caamo, ganacsato iyo garableyba. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa banaanbixii xooganaa oo wadada koowaad Maxamed Yuusuf Xaaji loogu magac daray camiray oo ilaa iyo baytulmaal madaari agteeda ilaa iyo ron aboutka buuxiyey, oo maxay ahaydayay muujiyey cududa Soomaaliyeed iyo arrinkaa foosha xun inay ka dhiidhiyaan. dhawaaqaasina uu gaaray laamaha amniga waddanka. inkastoo wax yaroo maxay ahayday iskoris ay meelaha marmarayeen, laakiin hawshii dhacday iskoris meel maray iyo wadaad meel ka hadlay iyo
maxay ahaydaye qolo si kale u hadashay waxba ka dhibi mayso, mirahoodii baanu maanta insha allahu tabaaraka wa tacaala ka mahad celinaynaa. waxaan u mahad celinayaa si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya oo daraato si xooggan ooga hadlay dilkii gabdhaha iyaga loo geystay, oo weliba si gaara ula hadlay laamaha amnigoo dhan, oo yiri arrinkaa ku gudbi maayo maxay ahaydayay si qabo yuusan u gudbin, waa in cadaaladda la hor keena. 2 casho kadib waxaana soo gaaraysa laamaha amnigu inay ku guulaysteen hawshii maxay ahayday madaxweynuhu u diray, hawshoodana ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku guuleeyo ragga madaxda u ah oo muslim iyo gaalba leh oo hawsha ka dambeeya soo qabtay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa rag baa jira aanan ka daba harin maalintii hawshaa la bilaabay ilaa iyo xalay 8 saac la soo xiriirayay, ilaa xalay 8 saac baan hadallo isdhaafsanaynay. halkaasuu marayaa, burhaanuu maray, halkaanuu maray, section 3 buu qaatay, gaariga noocaasuu wataa. ragga noocaasa oo aanan seexan, oo aanan fariisan, oo aanan nasan, oo aanan harsan, ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiina allah badiyo. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa qodobka 8aad ah, dad badan oo Soomaaliyeed baa duceeyey oo yiri ilaahu dhagar qabaha soo qabo. shalay baa ugu dambaysay oo uu Sheekh Cajiib ka duceeyey iskuulka Don Bosco markaanu soo xiraynay, oo si xoogganna ugu duceeyey in ninka gacanta lagu soo dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina tusay maanta inay laamaha amnigu na leeyihiin ninkii gacanta lagu soo dhigay. hawsha waxaa xooggeeda qaatay Sleep Business Community iyo banaanbixii iyo mudaaharaadkii iyo maxay ahaydaye muraaharaadkii meesha ka dhacay waa ka keentay inuu madaxweynuhu ka hadlo. weligeed ma dhicin hawl Soomaaliyeed oo madaxweynuhu u baxo oo ka hadlo. wallahu aclam wabillahi tawfiiq.